shariif aad ma santahay sida inoo sheegtay waxaad rabtaa inaad uga qayb qaadato caawinta dadka xagga raashinka 570 kiis oo bariis ah ayaad u diyaarisay oo basmaati ah kiina uu ka kooban yahay 10 baan marka dadka maxaa kugu dhaliyay inaad raashinkaas ku caawisid adoo la ogyahay inaad qof ganacsada tahay maxaa kugu dhaliyay inaad dadka aad caawisid maxaa kugu dhiirigeliyay arrinka waxa igu dhiirisay dhibaatada dadkii in la caawinayo dadkii oo kale inay dawladda caawinayso in dadkii meel kasta looga gurmanayo annagana waxaana dad muslima oo community ah dad muslima oo community ah oo inay caawiyaan u samaysan markaas waxay danqadeen aad u mahadsantahay shariif ilaahay khayr ha ku siiyo waxaan rajaynaynaa dad badan oo Soomaaliyeed inay kugu daydaan insha Allah tacaala saad ogtiin shariif dukaankiisa waa ka iga dambeeya waxa la yiraahdaa shariif grocery xalaal waxa uu ku yaalaa magaalada Seattle gaar ahaan aagga loo yaqaan Xamarweyn oo ku yaalaa muddo ayuu community-gu adeegayay dhaqaalaha xagga abaarta markii wadanka dhacdo uu ka qayb qaataa wuxuu kaloo ka qayb qaataa waqtiyada ramadaanada oo kale markii dadka la caawinayo uu ka qayb qaataa marka waqtigan kaliya markii ugu horeysay oo ka qayb qaadanaya caawinta dadka ma waxaan ognahay saan hore u sheegay xanuunkan runtii dhibaatooyinku keenay mid dhaqaale kaliya ma ahan mid caafimaad keenay waxa jira dad badan oo waayeel ah oo wax u soo adeeg aan lahayn saan hore u sheegay dadkaas ayaa damqiyay inuu caawiyo dadkiisa marka waxaan rajaynaynaa dadka kale ee Soomaaliyeedna inay ku daydaan ayaan rajaynaynaa shariif marka waxa tiri 570 kiish oo bariis ah ayaad ugu talgashay inaad dadka ku caawisid dadka marka miyiga soo doonanay mise dad u geenaya jirsa maadaama anaga aan haysan xog badan iyo access aan guriyii iyo wixii ugu tagno waxaan ugu talagalnay qof kasta oo adeeganaya markuu adeegiisa dhamaysto in la siiyo baagiisa bariiska ah dadkuna ayaga isku soo sheegaya oo community waa community iska warhaya ayaga iimaan ilaa shalay waa iimaanayeen dadkuna waa na weydiinayeen midna weydiiyay iyo midna weydiinba waraba uu ka yimaado neefrugudkan ha noqdo everybody oo soo gala oo dukaanka yimaado inaan siino baagaas haddii ilaahay awood la noqdo waxaan u order gareynaa ramadaantan 70 box oo timira oo kiiba 12 baag ku jiro oo laba boono iyo bariis cad oo 5 boono baan ugu talagalnaa asagana markii yimaadaan caawinta way socon doontaa ilaa ramadaan insha Allah ilaa ramadaan aad baan umahsan tahay shariif waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ku barakeeyo dhaqaalahaada waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ku barakeeyo xoolahaada dad badan oo Soomaaliyeed oo samaha jecel inay kugu dayan doonaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaal Maxamuud Yuusuf runta oo runtii ka dambeeyay in uu soo gaarsiiyo warbixinta shariif inuu rabo inuu ka qayb qaato caawinta community-ga aad baan u mahadsantiin daawashada daawanaysan muuqaalkan intaan ku kulmayno walaalkan xasan iyo idin la salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh